deegaanada qaarkood waa dhow yihiin akhyaarta inta joogta xasuusaxiin dheero kale waaba kana waa muuqdaa haliyo marka dhulku waa dhulkanagii haddii uu dheer yahay iyo haddii uu dhow yahayba laakiin ka dhowaan ka bilaabaynaa kan dheerna waa ku tegaynaa safarka 1 kiiloomitir aad uga socoto waxaa la yidhaha hal tallaabo ka bilowda jamaacat alkhayr maanta runtii aniga maalin aad iyo aad u weyn oo farxad weyn i gelinaysa waaye inaan baxdo imaado waa farxad dadkan inaan soo dhex istaago waa farxad kale dikrisalaam in laygu soo dhoweeyena waa farxad kale ayadana culimmada aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa waxaana haystana waa intaan nimanku wiilasheennii ahaayeen laakiin wiilasheennii oo la khalday qalbiga iyo caqliga wax baas loogu shubay waaye inta ay waxaasi qalbigooda ku jiro waa cadow inta ay aaminsan yihiin waxa qalloocan ay aaminsan yihiin waa cadow kii ka soo noqda ee inta baraaruga soo noqda waxaa la hubinayaa inuu ka tanasulo wixii uu soo noqda laakiin waa wiilkeennii dibaad dalkan dalan ahayn ma qabo dadkan dadan ahayn ma qabo waa la khalday maantoo dhan waa u sheegnay in la khaldow haayay iyo in la khalday kii qaatay in oo fahmay oo in la qalday qaatay ee soo noqdana waa wiilkeennii kii qaadan waaye ee mabda'aasi maskaxda ku haystee aaminsan ee weli sii socdana waa cadow waana layska dhicinaa reer baxdo ayaga ayaa tusay shabaab in laga adkaa karo dadka hadda waayahan dambe weligeedna shabaab taariikhda 15 sano iyo jarjarkii ay dalkan iyo ummaddanba dhibayeen meelaan culimmada aanay yac ka dhihin yac lagama dhihin haddii ay galgaduud qaybaheeda kala tahay iyo haddii ay mudug tahay iyo haddii ay meelo kala tahayba meesha culimmadu ay u istaageen nimankaas qaladkooda in la diido ayaa laga diiday meeshii tabardarro ay qabatay oo maxaanku idhaahdaa wax u shaqay waayeen waa halkeeda laakiin codka keliya ee hor istaagnaa nimankaa ee yac lahaa ee maya lahaa ee ma jirto ee waa beentood lahaa culimmaday ahaayeen culimmada ma aha midda ay sheeganayaan ayaga qofku khamiisna waa qaadan karaa cimaamad weynna muxuu ahay korka waa ka soo huga karaa culimmannimo intaas ma aha culimmannimo waa waxaad dadkaada u sheegtood bartaa daliil u ah inaad nin caalima tahay iyo in kale haddaad cilmi leedahood gurigaaga la seexato la seexato culimo ma ahayd haddaad cilmi leedahood ilaahaaga ku caabudood ku toosto nin taqi ahaad tahay ee culimo ma ahayd haddaad dadka inta soo hor istaagto waxa xunna aad ka celiso waxa toosanna aad u tilmaanto oo waddadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo sunnadiisii aad dadka aad tusisid markaasaad caalim iyo callaama intaba aad tahay markii dadka la dulmina ee lagu edabdarroona ee intii diintu ay fartay in la ilaaliyo la ilaali waayo oo intii diintu ay fartay inay la reebi waayo hadda maalintaas waa maalintay muxuu ahay ninka culimmada ahoo saxda ay u baahan tahay maalinteedii aana ka soo baxdeen masaajidka ilaahay waa u jeedaa xabadaha ku yaallo hadba dadkan meesha jooga xabadahaas kuma dhufan masaajidka ninkaan masaajid qofkan ku jiro aanay ka ammaan helayn kii sujuudsan aanu ka ammaan helayn kii weesaysanaya aanu ka ammaan helayn kii alla dartiis u socdo waddadiis iska maraya xataa oon waxaasoo dhanba iyo siyaasad iyo dagaal aanan ku jirin aanu ka ammaan ka helayn haddee anuu ma aqaan wax runtii lagu tilmaamo 29kii bisha oktoobar ee la soo dhaafay dadkii zooba agaarkiisa lagu laayey dad dagaalama ma ahayn qorya ma sidan islaan meesha muxuu ahay hilib ku gadaysa mid gaari gacmeed riixaayo oo moos iyo mambeelmo ay u saaran yihiin oo iibinaayo arday wasaaradda tacliinta yimid oo shahaado raadsanayo
mid baabuur meesha taagnaayo safar ahaayoo socday saaran oo safar ah sidiisaba mid maxaan ku yidhaahdaa xaafadaha ka soo baxay oo bajaaj saaranoo asna jidka zaxmad yar inta ka gasho waxeeye 100 iyo jarjar qofoodoo ka mid ah dadka noocaas ah saas sifahaas leh ninkii dilay ee weliba waad maqasheen hadda inta soo istaagay haddana dhahayaba wixii saxa ayaan samaynay oo muxuu ahay ridaan wasaaradda ma gelin dadkeedii ma dhiman wax kama bi'in dadkaas musaafiriinta iyo saakay biilka ilmaha u soo doontay ee jidka taagna wax ku dhintay maxaa lagu micnaynaa sanad ka horna 600 oo qof ah meeshaas ku dhimatay 5 sano ka hor 600 oo qofooda hal subax ku dhimatay maxaa lagu micnaynaa dadkaas abriyada ah oo dhiigooda saas u daatay annaguna inaan fiirsano sana yeelaynaa waana telefonaal ii soo diray waa la idilaahe saan yeelaahe waa magaciisii aan dhahno waxaan u malaynayaa culimmadana waa joogtaaye meeshaas inuu dembi ka jiraan u malaynayaa maxay ahayd munkarka gacantaada ku suuli haddaad aragtood munkar u aqoonsato gacanta haddaad kari weydo carabkaaga iyo afkaaga ku suuli haddaad kari weydo qalbiga ka nac qalbi ka naciddaas maxaa la yidhi marka waa adcafu liimaan wadalika adcafu liimaan waaba karnaayo waaba kanaa waaba aragnaya maxaan qalbiga keliya uga nacaynaa waryaa naga tag maan dhahno waa kasnaa bes ma ahane waa karnaa kasid keliya oon la aamusannahay nuguma filla waxa aan karno inaan qabanaan u baahannahay tusaale fiican oo marna naga nuxuusaya marna noo soo xoogaysanaya ayaad si kama dambays ah yaad muxuu ahayd daaha uga qaadeen khayr iyo ajar iyo xasanaad allah idinka siiyo intii dhimatayna intaasaa shuhada ahe ilaahay jannadiisii ha ka waraabiyo inta dhaawacantana allah ha bogsiiyo laakiin waa dhimanayna waana dhaawacmayna ma dhihi karno markaan dagaalkan galna bisaa dhimashadu nagu bilaabatay nimanku dadka waa laaynayeen weliba tarab yani 100 iyo 600 u laayo waaya hal qof ma aha dhowaan fursaddaa noo diiday wasiirka arrimaha gudaha ila socda inuu hadla ahayd laakiin wakhtigaa noo diiday dhowaan haddii alla yidhaah magaalooyinka istaagay ee iska xoreeyey shabaabka wixii dowladnimada ay ku lahaayeen oo muddooyinka la soo dhaafoo dhan ka maqnaa ilaahay idinkiis hadba intii suurtagala way soo gaari doontaa magaaladan guryo maamulka ah iskoolaad bara caafimaad wixii loo heli karo oo dawladdu maalin walba intay heli karta inay ula soo degdegto waa la suubinaya haddii alla yidhaah waxaan rabaa inta dhiman deegaanka galmudug baxdo oo aan maanta joogno markaan ka nimaado mudug ee galgaduud aan nimaado carrada dadkaani ay tirsanayaan inta badan maanta waa cadowgu waa laga xoreeyey dhiiggiinna iyo xooggiinna iyo maxaanku idhahdaa dawladda labada heerood iskaashateen ayayna ku timiday laakiin galgaduud iyo galmudugba waa dhiman yihiin haddii shabaabku meel yar uu ka jirana inta soo cifow halkanna waa soo noqonaya waa imaanaya inaan xididda siibno waayo marka degmooyinka noo dhiman oo galmudug oo dhan ah ee galgaduud ee maxaanku idhahdaa hadda dhinacaas u badan gobolka hiiraan inta badan waa hirshabeel laakiin galgaduud dhul weyn oo ilaa iyo xeebtii indian ocean ku tagaaya yaa ka maqan magaalooyin dhammoo waaweyn oo sidaanoo kale magaalooyin dhismay oo camiran ah ayaa cadowga naga haystaa barkaan jacar ka sii soco muxuu ahaaye ceelbuur galhareeri hore u sii soco ceeldheer maxaa galcad masagawaa dhul xaradheere oo inta ah u dhow ceel qooxle maxaanku idhahdaaye ceel garas yani dhuloo dhan waa noo dhiman yahay marka xeradaan haddaan ka bixinay dhurwaaga xerada inta kaa soo gala ad iska bixiday laakiin bannaanka taagane wuu soo leh arigaagu nabad ma aha arigaagu weli nabad ma aha
ilaa dhurwaagaasi ama aad disho ama meel aanu ka soo noqon karin aad geyso nimankaasi meel aanay ka soo noqon karin iyo badda inay ku cararaan aan rabnaa ay baxaan marka deegaanada qaarkood waa dhow yihiin akhyaarta inta joogta xasuusaxiin dheeroo kale waaba kana waa muuqdaa hal yiri marka dhulku waa dhulkanagii haddii uu dheer yahay iyo haddii uu dhow yahayba laakiin ka dhowaan ka bilaabaynaa kan dheerna waa ku tegaynaa safarka 1 kiiloomitir aad uga socoto waxaa la yidhaha hal tallaabo ka bilowda tallaabada ugu horraysood qaaddow ka bilowda safarka waa bilowda tallaabada koowaad tallabaad ilaa 1 tallaabo aad 1 kiiloomitir safarkii aad ku tagto waa guulaysanay li'anna xaqaan ku taagannahay diinteenna xaniifka ah waxa ay nafaraysaan ku taagannahay dulmi kuma taagnin been iyo huhaa sheegi mayno waa ku celceliya nimankaasi wadaadana ma ah diinna ma ah waa gruub maafiyo burcad waaye oo hugsaday mara diimeeday hugsadeen waxaan u baahannahay marada inaan ka qaadno dadku si uu u wada arko inay maafiya yihiin burcad inay yihiin dadku inuu wada arko nimaan dadkii dhaafayn oo naftoodii iyo dhiiggoodii iyo cirdigoodii aan dhaafayn xoolahoodii aan dhaafayn sharaftoodii iyo karaamadoodii aan dhaafaynin oo ilmihii ayagoo taagtaagan ka wadanayo oo gabdhihii ka wadanayo oo waxa ay yihiin iyo meesha ay geynayaan iyo gabdhaha cidda ay ku darayaan aan la garanayn war nimanku waana disheen aan iska qabanna haddii alla yidhaah daaw maaha walaal male ogaaw wiilkaad adeerka u tahay midkaad abtiga u tahay midka aad eeddada u tahay ama habaryarta u tahay ee shabaabka ah waa shabaab wiilkaagii maaha yaan lagu khaldamin sidaas qaraabanimadu waa nugu weyn tahay qaraabaysiga waa jecelnahay qof walba xigaba kaa xigee waranka xanaftiisa qof walba qofka xigow jecel yahay war shabaab nama xigo qaraaboy shabaab nama xigo inta uu fikirkaasi aaminsan yahay oo qalbigiisa uu ku jiro qaraabo maaha haddii fikirkaasi uu ka yimaado yidhaha war aniga shalay waa khaldamay maantaan soo noqday hadduu yidhaha ahlan wasahlan waa hubinaynaa inuu soo noqday inay dhab tahay in naloo soo diray kadibna hadday dhabowdana wiilkayni waaye dawladdina waa sidaasoo kale saraakiil ciidamaa joogto oo waa soo noqonin oo caddaysay inay soo noqdeen maxaan ku idhahdaa maamulka dawladahay ku jiraan ilaa heer wasiirray gaareen dadkii mar uun shabaab ahaa jiray kuwa hadda jirana kuwaasay la mid yihiine kama duwane waxay uga duwan yihiin waa fikirkaas qalloocanay wataanay uga duwan yihiin aad iyo aad ayaan mar kale reer baxdow idiin salaamayaa idinkugu mahad celinayaa idiin bogaadinayaa idiinna ammaanaya insha allahu safarkii ugu horreeyey uguna dambeeyey ma noqon doonee waa idiin soo noqnoqon doonnaa annagoona helikobtarra ku imaanayna jidka ku imaanaynaa idiin imaan doonnaa haddii alla yidhaha aad iyo aadaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh